kulankan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland la yeeshan madaxweynaha Soomaaliland oo ku qabsoomay xafiiska madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ayaa waxa la sheegay in lagaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay shuruudo cusub oo la sheegay inay xakameyn iyo dabar ku yihiin dhalinyarada hanka siyaasadeed ee ka qayb galaya tartanka golayaasha deegaanada ee Soomaaliland oo golaha wakiiladu xeerka doorashooyinka ee ay wax ka bedelka ku sameeyeen lagu soo daray iyo qodobo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland oo ay hogaaminayso dalada Sonsaf waxaanu kulan la qaadanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kulankaas wuxuu daaranaa saddex qodob qodobka koobaad waxa uu ahaa sidii aan uga hadli lahayn arrintii sida ka warqabtaan kootada ama muxuu ahaa arrintii haweenka ka qaybgalka talada dalka ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay qodobka labaadna waxa uu ahaa arrinta dhalinyarada oo aad moodo in la soo saaray xeerar xanniya oo runtii muxuu ahaa lagu xiray lacag aad u xaddi badan oo runtii aan u aragnay inaanay dhalinyarada isu sharaxaysa golayaasha deegaanka inaanay ka aanay awoodi karin iyo qodobka saddexaad ahaa arrimaha saxaafadda marka haddaan ku horeeyo qodobka koowaad arrinta kootada ah ee loogu talagalay qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay aad baan madaxweynaha wala hadalay runtii waana arrin imika dee gacanta ay baarlamaanka ku hayaan xeerkiina baarlamaanku ayuu la yaalaa marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inay sida ugu dhaqsiyaha badan hawshaasi wax degdeg ah uga soo baxaan gudoomiyaha dalada Sonsaf ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay kulanka ay madaxweynaha la yeesheen iyo qodobada ay kala hadleen in madaxweynuhu uu doorkiisa ka qaato qodobka labaad sidaynu ka warhayno dhalinyaradu reer Soomaaliland waa dad doonaya inay ambitionkooda ama political ambitions ama hamigooda siyaasadeed in ay muxuu ahaa tijaabiyaan marka waxaa jiray qodobo ay baarlamaanku soo saareen oo lagu xiray lacag aad u xaddi badan oo runtii dad badan oo hami siyaasadeed lahaa aanay awood u lahayn inay helaan laakiin qof ahaan iyo shakhsiyad ahaan aan u aragnay in ay dalka iyo dadka wax u qaban karayaan marka lacagahaas oo kale sidii looga khafiifin lahaa maadaama ninka dhalinyarada ah ee 30 jirka ama 50 jirka aanu lacagta lagu xiray ee ah meel wax weyn $5,000 meel wax weyn hanti ma guurta oo gaaraysa $70,000 inuu haysto marka waxaanu nidhi ka doodaynaa arrintaas inaanay ahayn arrintii ama xanibi karta ama ka hor iman karta ninkii dhalinyarada ahaa ee musharaxa marka barintaana laga khafiifiyo aad baan uga hadalnay qodobka saddexaad ee kala hadalay wuxuu ahaa arrinta saxaafadda oo baryahan aan ognahay in dhalinyaro badan oo ama TV-yo ama magaranaysa suxufiyiin badan ay xiran yihiin arrintaasna waxaanu madaxweynaha u bandhignay in xorriyatul qowlka iyo madax banaanida saxaafadda in ay maadaama aynu nahay dal dimuqraadiya in muxuu ahaa madaxweynuhu xil iska saaro inuu muxuu ahaa arrimahaas oo dhan aanu muxuu ahaa sidii wax looga qaban lahaa runtii madaxweynuhu noo ballan qaaday in muxuu ahaa xorriyatul qowlku dalkan ka jiro dalkan dal dimuqraadiya yahay saxaafadduna wixii aan dembi ahayn macnaha qofkii faldambiyad lagu qabtana dee kiis gaara tahay wixii kale ee qofka xorriyadiisa ama saxaafadda xorriyadeedii madax banaanideedana muxuu ahaa aad la iska xil saaro taana waan ka wada hadalno dhinaca kalena gudoomiyaha dalada Sonsaf oo aan weydiiyey sida ay u arkaan ilaa iyo hadda halka ay dhaqdhaqaaqa doorashadu marayso ayaa waxa uu ku jawaabay runtii waxaan u aragnaa way hawlihii inay maanta si fiican u socdaan oo saad ka warqabto muxuu ahaa 2-3 cisho ka hor waxaan ka qayb galay furitaankii diiwaangelinta codbixiyaha oo ka dhacay magaalada Beledweyne aniga commissionka waan isla commissionka doorashooyinku si fiican 100 qof baa la tijaabiyey si fiican bay u dhacday arrintaasi markaad eegto dhinaca xukuumadda iyo dhinaca xisbiyada iyo dhinaca hay'adaha qaramada midoobay kuwa taageerada dhaqaale siiyaba iyo ururada bulshada rayidka dhammaan waxaad moodaa inay ka wada go'an tahay in doorashadii ay dhacdo muxuu ahaa waqtigeedina lagu qabto si fiican hawliilaa imika ay u socdaan xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyay ayaa haatan doodiisu ay ka socotaa golaha wakiilada ee Soomaaliland iyada oo qodobada ilaa hadda muuqda ee lagu soo daray ay ka mid yihiin da'da tartanka golayaasha deegaanka iyo wakiilada laga qayb galayo oo kor loo qaaday sayeeshee dooda ayaan weli dhamaanin waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ama toddobaadyada soo socda ay golaha wakiiladu meel mariyaan